بسم الله الرحمن الرحيم marka koowaad waa islaamaya meel kasta joogtaan muuqaalkan si sheer gare meel ka tuur arrimo badan ma ka hadli doona arinta dastuurka laga haysiya reerisi khaatimo marka koowaad dawladda ay khaatimo hadafka ugu weyn ee laga lahaana oo deegaankaasi yahay deegaan maamulka ay khaatimo oo ka taliyo kumeel gaar maamulka hadda xukuumadda joogtay kumeel gaar tahay kumeel gaarnimadana aynu ka baxno oo aynu u gudubno waxa la yiraahdo dawlad goboleed axadiga aynu dhisanay maamulkan hadda ku dhisan yahay waxa weeye waa in maamulkeenu muddo 2 sano shaqeeyo 2 sano kadibna aynu gudubno inay noqono dawlad goboleed rasmi ah 12 qodob ee soo baxay waxa ku jiray in maamulkaas gacanta talada loo galiyay waxa uu qabanayay shaqadiisana ay tahay axad qarmeedka ku qoran su'aasha isweydiinta badan waxa weeye dastuur ma u baahana aynu ku meelganada ka baxno حالتها قفك أغلى لو قرناها دستور ولا بهاي لكن هذه اللي دستور باللو بهاي ولا قرية سؤال كلا ضبطها وضبط له مريا سؤال شو مهمسن وتحسوي وحلوك الأركدوية هنا سؤال شاسي معنا سيل له مريا حاجة له مريا واي هذا ما يدي شيء دستور محورية دستور وحوي وهشيس بلشو social contract بلشة راس يدت كاس اللي نقيه دولته ay ku dhaqayso shacabka lagu dhaqayo xuduudaha deegaanka Suways madaxbannaanida maamulka Suways kala dambeynta dawladnimada Suways ku dhaqanka waxa weey sharciga waxaas dastuurka imaanaya way dastuur marka yaa ma dastuur qorta dastuur waxa qorta cid maamulka leh ee maamulkaas ku meeysan ayaa qorta inaga marka 6 February maamulkan dhisanay dadka reer SSC ma u dhamaayeen ama ka yimaadaan Soomaaliya sanaagi Cayni Highland mayo waxa u dhamaa 3 beelood 4 beelood oo ay ka mid tahay warhante faqashini hadii la kuuriyay Karikombe Madibaan 4 beelood baa maamulka 6 February dhistay xaalad dagaal oo adagna waa lagu jirayo wax badan laga gaarsiin kareen marka sidaas maamulka ku meel gaar ahaan loo qaatay أحد يقول أنت مركا إن يقول بدي 6 فبراير صباح إن شر لقبته بيريه ولا يسويه يرو وشركة يا قمنا يا هو كان كوهيا إدي مركا ثلاثة لودي يكون الجاركة معمول سواي وحكومة الدولة هذا ينوشته إيش خاتمه مركا وين عرقنا باهي دستور وباهنا أوكي وده الأمر عم حياتها وده الأمر لحوا الدستور كان إدي لو قلنا غير هاي الهلوي والله يصلح له إدي لو معمول لها الإسلام إذا دستور كقرطة أمبا لو معمول كان لكن إذا عن غيب كان نقول دستور كان يعني اسمها دور النمو دستور كاسي ما نقامنا يو إدي بكذا صدر كرتنا بترتو حقيقة لو شافع إدي بكذا صدر كرتنا بترتو واحد بيسكلي مركز نسيو حداني دتكو أيتن وحوي تراك بود كورة لهين إذا بريكو صابيري سي إذا بري لكينيا waxaas wax maskaxda gali kara ma aha hadaba dastuurka waa in la helo cid lagu xukumi lahaa waa kow marka la isla helo cid lagu xukumi lahaa markaas ba dastuur qori kara hadaba waa in la helo beelaha wada degan gobolada Sool Sanaag Cayni iyo Highland hadii aan Carabaabo si gaara dhulbahantay warsan gali faqashin kaski qabe gari Kombe Madibaan hadii la kuuriyay Jibraahiil ogaadeen iyo Gahayl oo marjartana inta beelood way la raadiyo way taasoo qodob way hadii beelahaas la wada waayo oo inta Carabaabay qayb kamid la waayo inta isla ogol ba maamulka iyo dastuurka wada qoraas oo heshiisku ku galaysa su'aasha daba soo wadin waxa way in ku meel gaarka laga baxo yaa mandate u haysta wali ku arki doonay qofka axadiga akhriiba de saxan oo qaat dastuurka in ku meel gaar laga baxo mandate waxa uu haysta xukuumadda hadda jirta yaa mandate u haysta xukuumadda hadda jirta mandate u haysta oo shirki qabanaysa beelahan Carabaab raadinaysa waxa weeye gobol u fudinaysa tarashiishka inaynu ka baxno cid mandate u haysta waxa weeye waa dawladda hadda jirta is qaatamo taasuna waa qodob muhiim ah la soo waafaqo axadiga aynu dhisanay absolutely ma sheegayo in dastuur la qorto oo meel kaga maxsuur waa sax laakiin qodob kala kulamaanan oo sheegaya oo ah inaan u socno dawlad goboleed oo dawladda hadda dhisanay ay tahay kumeel gaar
sidaa daraaddeed haddii baan u soconayna dowlad goboleed noqon oo dowladda kumeel gaarka ah 6 February lagu dhawaaqay dowladda ka dambaysa ay noqon doonto dowlad goboleed inta labada sano ay kumeel gaar tahay dowladdaasina ayna gaarsiinayso dowlad goboleed wuxuu intaas ku soo ururayaan dowladda markaas kumeel gaarka ayaa ka shaqeynaysa qaabkii dastuur bulshadaas reer Soomaaliland iyo Highland ay ku midaysan yihiin dastuur ay u dheeyeen dowladda ayaa ka shaqeynaysa maadada oo haysta iyadoo aan faragelin guddiyo madax banaan ha wuxuu saartay laakiin waa in la isla ogolay waa in beelihii dastuurkan lagu dhaqeeyay in lagu xukumayay si wada jira way ugu joogaan oo aan la oran cid ma xaga daba laga soo daray ma jirto waqti waan haysanaa 8 bilood baan haysanaa waqti fiican weeye waqti wax kasta aan ku qaban karno weeye taasna waa qodob weeye yaa door la marka waxa door ku leh arinta kumeel gaar bixista waxa door ku leh kow dowladdan hore u carabaabay oo doorkeeda qaadanaysa oo iyada fududeynaysa waxa weeye habraaca waxa weeye transition laga baxayo cidda diyaar garanaysa ee ka shaqeynaysa dowladda wax saaran oo ma dhaw haysta qodobka kale waxa kale door ku leh dadka loo yaqaano ama dadkeena waxa weeye wax garadka ama stakeholderska la yiraahdo ee qaybaha kala duwan bulshada ka soo dhaxbaxay ila dowladani bulshadii ay moogtahay ka soo dhaxbaxday dadkaasina door bay leeyihiin talada wax laga weydiiyo qaabka aynu ku meel gaar uga baxano taas waa qodobka saddexaad oo kale dad waxa loo baahayaa khubara oo khibrad loo expertia ayana loo baahayaa oo iyaguna absolutely qaybtaas ka qaata xukuumadda si guud ama golaha fulinta ama golaha sharci dejinta si wada jira ay arintaas waxa weeye ay uga shaqeeyaan sidoo kale waxa door ku leh ergooyinka dabcan la soo xulay haday tahay ergooyinka beelaha aan hore u carabaabay ergooyinka lagu soo xulayo talay ku leeyihiin qayb bay ka yihiin dabcan kumeel gaarka bixista weeye taasna waa qodob weeye inta markaan isla fahanay dowladda hadda jirta xukuumaddan maxay ka shaqeynaysaa xukuumaddani waxay ka shaqeynaysaa in beelihii aan la wada raadin taasna wax soconaya waa khalad weyn weeye dowladdu wayna beelaha wada raadiso haddaan special aan carabaabo beesha warsangeli gobolka Sanaag iyo Highland degta ballaaran beeshaasi ergaaba inaga dhaxaysa dhul iyo deegaan badan inaga dhaxaysa jirta beeshaasi waa beel weyn weeye waa dad aynu ehel iyo tolnahay waa dad diyaar u ah inay reer SSC qaatumo wax la qaybsadaan anu tan xoogaalka ahay waa anu xiriir badan ayaan la leeyahay taasna waa qodob weeye waxaan rabaa reer SSC qaatumo inaan u sheego kharabaadkii 2012 in dib loogu noqdo maaha waayo de waxay ahayd beelihii deegaanka inay wada raadin lahayd laakiin taa waxa la oran karay xaalada kale lagu jiro taas cudur daar bay lahayd 6 February cudur daar bay lahayd oo waxa weeye dagaal baba inagu furaaba oo xilli beel isla raadiyay la jooginba maanta reer SSC qaatumo cudur daar cidii ka asmacaysan ma jirto runta isu sheegno waa in la raadiyaa warsangeli absolutely hadii la waayo de marka waxa weeye waxaan ku doodno waa garan karnaa laakiin inagoo cid baan raadin bayna dhahno dastuur baynu qoranaa waxaas ma jirto warsangeli dana badan bay naga dhaxaysa isku deegaan baynu nahay dadkeeni weeye walaaladeen weeye waxana ma diidana intaan xoogaalka ahayno waxana ma diidana kumeel gaar ka bixista waxa muhiim ah in la helo beelaha gobolada Sool Sanaag Cayn iyo Highland beelaha degan in la helo waa muhiim weeye taasna waa qodob weeye arinta kale rabaan carabaaba weeye macnaha ay leedahay maxay tahay quruxda foolxumo ka weyn jirtaa madaxweyne dhul baahanta madaxweyne ku xil baahanta gudoomiye baarlamaan dhul baahanta tani kumeel gaar baheedo waxa way ku qabsatay baheedba noqt laakiin wixii hadda ka dambeeyay leedka asmici maayo oo laynaga asmici maayo oo dawladnimadeenu qurux yeelan mayso oo dawladnimadeenu hana qaadi mayso intaanu leenahay qaabkii kumeel gaarnimada ayaanu hadana dib isku dooranaa suuragal ma aha dawladda way la balaariyaa oo dadka deegaanka wax laga siiyaa absolutely waa inaan u dhaqanaa qaab dawladeed weyn u dhaqanaa sigay hadaynu raadino oo aynu weyno maanta waynu ka garjoognaa laakiin hadayna raadin deegaanka garjooga garan la taqaana waxay la dhageysataan ilaahay baa ku dhaarshay caaqil gabayre qaasha hartiga waa dadka aan ugu ixtiraamka badanahay way oo ah nin warsangeliya caaqil warsangeliya waa ninkii koofiyada tuuri jiray way oran jiray walaalkii yiri hoog alla baday dhageysta ninkan qodobka uu ka hadlay dhageysta waxaan la hadlayaa reerka la yiraahdo Saciid Harti waxaan oranayaa Saciid Hartiyow
waxaynu ku jirro iyo halkaynu marayno iyo halka waxaynu marayaan waa ogtay wali waxaynu ku jiraa horta waa ku leeyahay nimadii wali ma dhamaan waa ku leeyahay in gaar cid wax u samaysato waxayna facaan waa wax la wada leeyahay waa tala loo dhan yahay waa dastuur loo dhan yahay waa dhimasho loo dhan yahay waa difaac loo dhan yahay waxaan haynin ma facaan waxaan loo dhamayni idinma deeqaan annana ma deeqaan wax idinka idin gaari ma jiraan waxaan gaar idin ahayn oo leedin leeyahay haba isku qaban lagu sima noo haya wuxuu barbarkii ka baxdaa waa bakayla qaleen haddiina la ka wahay booska iyo ka dawta shaqo waxeen laakiin hadaan heeganahay oo taaganahay oo xufka iyaga iyo toomkayga noo gooyay nagu soo talada ilaahay baan idinku dhaarsheeyay miyaanu idinka gorjoogin reer istiqaatumo miyaanu aqalku idinka gorjoogin ruuxu weyn maadaraad tolo dhulka inoo dhiga ruux baan idin leenahay ruuxayna wada leenahay dhisano ninkaas miyaanu idinka gorjoogin baan idinka gorjoogaa ilmaadareelow runta idin sheega daba si gobonimo leh inoo la hadla talaa dhulka la dhigo xukuumadda aan talaa dhulka la dhigo dadka la wada raadiyo tolka aqalkan waa mahadsan wallahi hadal dhaxalgal ah ayuu ku hadla intaas waa qodob hadii la waayo warsan gali waa sida uu sheegay horta xaq baad u leedahay wixina dastuurkiina qorta laakiin anagoo diyaar oo heegan ku jira sabab nolol dhaw hadii la kuurayo nolol ignore garay war waxaas ceeb weeye gobonimada ma dawladana mas'uulka isna mas'uulka ma adkana mas'uulka ma dadka beelaha in la wada raadiyo dawladda maandeed u haysata kumeel gaarnimada laga baxo dawladda maandeed u haysata cid kale oo eeda la qabto ma jirto بس أحد يكون قرنتاي إذا شروينها كمان إذا بينها شروينها إذا ديار جريان وحوي قاب كي ترشيش كلا ربع لها دولة دوي مدة كلام أريد عاد أفرح معك محا اسمه الله عاية محا دقنك الله عاية محا سياسية الله عاية حدي سياسي وكارك تدوين هذا وحنا هذا يكون دولة سيجارة دولة ما قاعد كدنيا اسمه دقنك سياسية عاية إلا وحوي خاتمة إيش خاتمة دول أورما شفتوا وعيد خاتمة دول زي ما شفتوا قالوا والبعدون سي وحلا صحيح دونس وخلد وقفوي أنا خاتمه يدور من عندها نقاهنا عدو كسر صورنا عندها نقاهنا جماهيرنا عندها كويسة بشرة عندها كويسة أسي خاتمه ليك بالله شوي دت كنا ربنا وذي عشانها كو قونية oo hadii la kuna magacyo gooni la baxday inay madaxda SS khaatumana afkooda ku hadlaan dadkan aflagaadeeyaan dadka ilidka inoo ay dhaqanka inoo ay la aflagaadeeyo oo challenge laga sameeyo ruuxaas waa gunniin weey wax wanaagsan ma aha hadii ninku ku yiraahdo warda sidaan ay noo la qorxda inay ma jiritaanka khaatuma laga soo horjeedo hukuumadda waxaan leeyahay war kuwa idinku been abuuranaya afkiina madaxda ku caayay war hoy har idin jiidi maayaan qofka aragtiisa xor buu yahay laakiin waa goorma xayndaamka is khatmo loo gudbo ma inta xayndaamka is khatmo lagu joogo qofku aragtiisa waa u xor sida uu arko inuu ugu wanaagsanaan karo inuu ka hadlo xor intoo shaqaran kartana ma jirto been abuur ka sameyn kartana ma jirto dawladnimada is khatmo ummadda dhan baa ilaashanaysa yaan ummadda dawladda loo soo rudxeen oo qolo gooniye tim gooniye oo danan gaar ah wata dadka wax weyn muwaadiniinta xaq iyo xuquuqda ay leeyihiin in lagu xadgudbo khalad weey intaasna waxaan leeyahay dadka dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo dadka aragtiyahooda si xor u imanaya caayaan leeyahay ugu dambeyn wasiirka warfaafinta saaxiibka Najiib Barkhadle mid baan u dirayaa horta waa ka xumahay dawladdu golaheeda wasiirada gaar ahaan wasiirka warfaafinta oo wasaaradda islaamka in arrimo internal ahaan oo arrimaha siyaasiyiinta ay ku aragdoon waliba xildhibaan ah وحسانات له إن الدولة كهذاش وزيرك ورفاقته كهذا وفيلم وياه عدو دبده معلومة تفيد أوسط تاجن معمولكين عاية وزير له نقول بدي جيسله تصاحب وانا إنه شوابه لكن الرماء إنك إنتنا لهانا ودحدين إنه كهذا وزيرك وحوي قبية سوقات وحلا هي الدولة نمدو مناسب هنتي كما أها إذا لو بهاي dadka ay jihayso oo dadka ay midayso waa dawladii hadii ay isku daydo qaar kamid ah wasiirada dadkana kala qeybiyaan ruuxaasi wanaagsan wax wanaagsan ma Najiib Barkhadle waa saaxiibkay khalad badan u galay waa jirta anaguse wasiirka aniga iyo saaxiibkay Maxamed Boocame waxaan laas aanood geynay idaacad la yiraahdo codka shacabka xilliga halganka idaacadaas dadka u adeegi jirtay wasiirku aan kamid ahayn rag bari taaray rag dhisay
oo waxa la beena waas markhaatigiisu fogeeya waa nooli waa daawanayaan waa dhageysanayaan annagii la shaqeynay oo bari taarnay hawshii ugu weyneed uu qabto waxay noqotay idaacadii dhameed ee codka shacabka inuu gabadha isku laabo inuu xiro inuu awaamiir ku soo rogo hadda ma ogta walina annagoo meel ka hadlayno oo ka dhaleecaanana absolutely lama arag waxaanu ilaalinayna dowladnimada ilaalinayna madaxweynaha ka dacweynay oo gudbinay golaha wasiirada cid walba aan gaarsiinay intaasba waa muud bay ka galeen maxaanu isla afgaranay marka inaan loo jawaabin in dowladnimada la ilaaliyo wali ma maqasho Abbas Madani wasiirka warfaafinta dhaliilay may dhaliisha maamulkan marba absolutely ma jecel in ma la marayo wixii dhaliil aan qabo aragtiyana maamulka madaxda ugu sareysa deebsi private aan ugu diraa marka waxa ugu dambeysay markuu frequency idaacada uu xoog ku qaatay وحوك توجيه ولياشي رئيس خطوانين لا شقيني إذا عاد عدك الشعب يا في النوال يدروش ولا بس كلها وقارك حرقوها انتبه انت كمان في العلن دولة النوال إلى علينا نحن علينا دولة الشلبيتين برنا حكومتك على مانوس أركتي أصلا وقمنا دولة النوال إلى عليهم مركب وزيرك صاحبك وحلي صاحب تحناك دولة النوال إلى علينا تدك أن نسكونا dadka ayaan cad loo kala sameyn umada idinka maadadu haysta umada midnimada ka shaqeeya dawladana yaan la suurad xubeen arimaha inaga dhaxdeynana yaan la buubuunin waxaan ku soo gabagabeynaya hal joojiye media la isaga jawaabayo oo waliba golaha fariinta xukuumadda waa ka codsanayna aragtiyaha la isku qabo iyo aragtida kala duwanaanshaha miiska wada hadalada ha lagu dhameeyo xukuumaduna talooyinka ha dhageysato talooyinka bulshada ha dhageysato annaga waxaan ka shaqeynaa hadda dadka qaar baa wax noo yaqaan fadhiyo u shaqeeyno dadka qaar baa aaminsan warana fadhiyo madaxweynaha wixii khaldana waa kala tireen wixii ku saxayna oo ku taageerina laakiin annagu waxaan ilaalinaa waa dowladnimada istiqaatimo weey baan ilaalinaa oo dhowrayna absolutely taas aan ilaalinaa taas weey annagu cid gooni anigu khaad fiiri laaluush kuma qaadano laaluush kuma qaadano taageerada mara hadda caana yeelatay maraysan caana lahaynba oo aan dowlad jirinba baan anu ka hadleen magaraas waanu cad badan ku yeelana waajib weey arinta ugu muhiimsan ku soo gabagabeeyay waxa weey midnimada hal ilaaliyo wadajirka hal ilaaliyo dowladdu talooyinka dhageysto intaas ku soo gabagabeeyay insha Allah